ما isweydiisay sababta magaca Generaal Maxamed Faarax Ciidiid wali uu dhexguuxay taariikhda Soomaaliya ma haliyay ayuu ahaa mise hogaamiye muran dhaliyay maxaa ka dambeeyay isku dhicii Mareykanka iyo Soomaaliya maxaa dhab ahaan ka dhacay dagaaladii Muqdisho muuqaalkan waxaan si qoto dheer uga hadli doonaa noloshii halgankii guulihii qaladaadkii iyo saameyntii uu Generaal Ciidiid ku yeeshay siyaasadda iyo dagaalada Soomaaliya haddii aad rabto run aan la qaranin ku soo dhawow safar taariikhi ah oo xanuun geesinimo iyo muran bale Generaal Maxamed Faarax Ciidiid wuxuu ku dhashay magaalada Gaalkacyo sanadii 1934 wuxuu ku soo barbaaray xilli gumaysi iyo halgan qarannimo ay jireen dabeecad hogaamineed iyo adeeg ayaa lagu arkay isagoo da'yar waxbarashadiisa military wuxuu ku qaatay Talyaani iyo midowga Sofiyeeti halkaas oo uu ku bartay xeeladaha dagaalka istiraatiijiyadda iyo nidaamka hogaaminta ciidan casri ah Ciidiid wuxuu ka mid noqday saraakiishii ugu firfircooneed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dagaalkii ogaadeen wuxuu muujiyay hoggaan adag iyo qorshe military oo xil dheer inkastoo dagaalku ku dhamaaday guul darro siyaasadeed Ciidiid waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa taliye aan ka leexanin go'aankiisa kadib dagaalkii ogaadeen xiriirka u dhexeeyay Ciidiid iyo xukuumadda Siyaad Barre ayaa xumaaday waxaa lagu soo eedeeyay shirqool iyo mucaaradnimo taasoo keentay in la xiro muddo dheer xabsiga kadib Ciidiid wuxuu galay mucaarad hubeysan wuxuuna noqday mid ka mid ah hogaamiyayaashii jabhadda USC United Somali Congress sanadkii 1991 markii ay dhacday dawladdii Siyaad Barre Ciidiid wuxuu noqday awood weyn oo ka jirta Muqdisho isku dhicii u dhexeeyay isaga iyo Cali Mahdi Maxamed ayaa geliyay magaalada burbur iyo dagaal sokeeye taageerayaashiisa waxay u arkeen hadii uu dagaalamay xaqooda halka kuwa kale ay u arkeen inuu sii horinayo colaada sanadkii 1993 Ciidiid wuxuu si toos ah ula dagaalamay ciidamada qaramada midoobay iyo Mareykanka dagaalkii 3 ama 4 Oktoobar Black Hawk Down ayaa noqday mid dunida gilgila dhacdadaas kadib Mareykanka wuxuu go'aansaday inuu ka baxo Soomaaliya taasoo Ciidiid u arkay guul istiraatiiji ah Generaal Ciidiid wuxuu geeriyooday 1996 kadib dhaawac ka soo gaaray dagaal ka dhacay Muqdisho geeridiisa kadib wiilkiisa Xuseen Maxamed Faarax Ciidiid ayaa la wareegay hoggaanka dhaxalka Ciidiid waa mid muran leh qaar waxay ku xasuustaan haliyay qaran qaar kalena hogaamiye dagaal oo burbur horseeday taariikhda Generaal Ciidiid ma ahan mid madow ama cadaan kaliya waa taariikh isku dhafan oo geesinimo qalad iyo duruufo adag fahanka taariikhdaasi waa furaha fahanka burburkii iyo casharada Soomaaliya haddii aad soo gaartay halkaan mahadsanid taariikhda ma ahan sheeko la iska dhageysto waa cashar laga barto mustaqbalka haddii aad rabto muuqaalo kale oo taariikhi ah like saar subscribe dheh oo faalo ku reeb fahankaaga Generaal Ciidiid haliyay muu ahaa mise hogaamiye muran dhaliyay